wadaad kan horarka had iyo habeenba maalina nin saaran maalina koox saaran ee Soomaaliya hadalkiisu u dambeeyay hadda sheekha uu ku difaacay hadalkiisu u dambeeyay bal fiirsada nabi maxamed buu ku been abuurtay sallallahu alayhi wasallam inaga wadaad baan ka hadlaynay rasuulka wuxuu ka sheegay xadiis uu yiri waa xadiis oo uu leeyahay rasuulka wuxuu yiri man lam yahzan bi mawt al-aalim fa huwa munafiq ruuxan la murgin ninka caalimka dhimashadiisa ruuxan la murgin waa munaafiq buu nabi maxamed yiri waana beenaale nabi maxamed ma dhihin xadiisna ma aha asagoo meesha taagan buu dajinaya nabiga ku been abuuranaya sallallahu alayhi wasallam hore u jiray haddana jira doona waana sikirka qalloocday oo fahamka saxiixa ayaa dibaya fahamka saxiixa dibaya Soomaaliya waa inay dadka noocaas ah ee fikirka khawaarijta ee dawladda dhexdeeda joogaan leeyahay salaam ay ka qaadaan barta uu taagan yahay buu abuuraya markaasuu leeyahay rasuulka yiri sallallahu alayhi wasallam munaasabad ma jirto wadaadkaasi uu soo istaago ilaa ama shakhsi buu saaran yahay ama koox buu saaran yahay wax kale uguma baxdo hadda munaasabaadka qaarkood waxaan leeyahay waxa kamid ah munaasabaadka qaarkood oo xataa uu sanfahansanay in wax loogu talagalin waxa ka tan badanaya wixii isaga saarnaayo markaasuu munaasabadii waxay la dardaraysaa inuu muxuu ahay uu dad maago waa dhaway dawladdu waxay soo keentay culimada Soomaaliyeed oo meelo badan la isaga keenay dawladdu qodobay rabto culimadu inay ka hadlaan oo go'aamo ka soo saaraan dadka meesha joogay dariiqooyinka suufiyada waa laga badan yahay Soomaali culimadeedii baa joogtay in badan oo kamid maxaa la wata dawladda wadata fadhiga maxay rabtaa wadaadada inta la soo keenay wada hadlaan inay masaa'il iyo go'aamo soo saaraan meeshii baa intuu istaagay baa wuxuu yiri balaayo dhan waa wahabiyada ka socota waa khawaarij dawladdu sayesha garan mayso warinkan qabta warinkan baabkii meeshii wixii loogu talagalay buu burburinaya munaasabad kasta xataa munaasabad ma leedahay ma laha meeshu ma u qalanta uma qalanto xagee joogta danka male ninkii noocaaba intuu markii soo istaago wuxuu leeyahay culimada hal daayo maxaa sheekha loo maayo culimada maxaa laga rabaa waraadu culimada ma deys waa falagaadada ma iska deys oo nabiga ku been abuurayso ma iska deys markaas haddana kaaga darane dawladii dadka ka dhaxaysay oo salafigu ku jiray oo tabliiqu ku jiray oo suufigu ku jiray oo inta mid aan ku jiray oo caamadu ku jirtay ayaa wuxuu doonayaa intuu amro inuu soo qabta sheekayga ninkii baa soo qabta war dawladdu maaday ku shaqeysaa mise dawladdu dadka ka dhaxaysa